wafdi uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo ay weheliyeen abaandulaha koobaad ee ciidamada Somaliland sarreeye guuto Cabdirasaaq Siciid Bullaale iyo taliyaal kale oo dhowr ah waxaana mas'uuliyiintani kormeer shaqo ay ku yimaadeen degmada Boorama ujeedada socdaalkooda ay waxay mas'uuliyiintani ku sheegeen xogowga u noqoshada xaaladda guud ee degmada Boorama iyo sidii loo soo afjari lahaa shaqaqooyin muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa magaalada Boorama waxaana mas'uuliyiintani ay kormeer ku soo mareen goobaha kala duwan ee maranku ka taagan yahay Naasir Caydiid wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo warfidiyeenada kula hadlay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyay ujeedada socdaalkooda xilligan ay ku yimaadeen magaalada Boorama horta dhamaantiin waan islaamaya gobolka awdal oo dhan waxaan u nimi kulli shaqooyinkiisa caadiga ah oo safar shaqano caadi ah waxaan ahay wafti baan ahayn aniga iyo taliyaasha ciidamada qaranka ee kala duwan qaar kamid ah laba jananaar iyo gaashaan la sare xubno ka tirsan farsamo yaqaano ka tirsan hawlaha guud wasaaradda hawlaha guud agaasimaheeda waaxda dhulka kulli waxaan u nimi hawl shaqo waa maqalsan bariyahan shaqaqoon yar ka jira meel dhul oo la isku haystay iyo farsamooyin caynkaas adoo xagga amniga wax quseeya oo kala duwan ayaan u nimi insha Allah ta'ala kulli waan si joogdana maalmaha soo socdana marka wixii ka dibeynu wixii wareed dambe kala qaadan doonaa iyo xaaladahaas marka dambe kala qaadan doonaa imka inta yar hor amaniisi sheegina hadii la ilaahdo marka sababtaas aan hawshin insha Allah wali ma dhax gelin laakiin waan gali doonaa hadii la ilaahdo markaan intii horse galay had baalka xun mareen kulli waan ka socon doonaa hadii la ilaahdo meel fiican way noo maraysaa sidoo kale isaguna waxa dhankiisa halkaasi ka hadlay abaandulaha koobaad ee ciidamada Somaliland sarreeye guuto Cabdirasaaq Siciid Bullaale waxana uu ka dhawaajiyay hadalku wuxuu noogu dhan yahay wasiir ku-xigeenka dadku markay anaga naarkaan General Muuse oo ah taliyaha aaga bariga oo ku joogay hawl shaqo Hargeysa isna ila socda oo guddiga wafdiga kamid ah gaashaan la sare Cabdidheer hoggaanka gaadiid kamid ah kulli marka kamarada laga arko nimanka iyaga tootaysan waxa la oranayaa wasiirka iyo hawlaha guud agaasimaha dhulkuna uu nala socdaa xoog ma ahay waxaan u nimi shaqo arintii ciidanku ay ugu horeyso halkii airport ka sokaysay ay ugu horeysay dhulka ciidanka ay fadhiyeen oo ma sharci bay ku fadhiyeen mise way iska fadhiyeen madadkeele yaale madan guudba arinta oo la gali doono la guda gali doono ay ugu horeyso ciidan ahaan waxaanu ciidan ahaan isu soo raacnay inteeda soo mas'uul ciidan ahaan inaanu ciidanka xaqiisa hadaan xaq lahayn inaanu ka saarno hawlaha kale ee gobolka abnina waanu nimi sida wasiirku sheegay waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.